السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله ودني فيك سوان سلامي. صباح وناكسن أب ويكند waxaan halkan insha Allah noogu bilaabanaya week cusub insha Allah hadii la yiraahdo Ilaahay ha nooga dhigo week barakeysan halkan waxaan ku duubi doonaa cashir aad u muhiimsan oo walaalo badan ay ku dhiban yihiin kaasoo FTMO-ga Soomaalida haddaan nahay waa barnaamij nagu cusub oo mar dhow noo imaaday laakiin wadamada kale waa wax ay ku shaqaysanayeen almost last 3 years marka wixii markuu kugu cusub yahay waxa la rabaa wixii inaad baratid marka baratid oo fahantid kadib aad wixii bilowdid laakiin walaalahan Soomaalida waxay qabaan wax la dhaho degdeg ayaa nagu furan ayaga wixii baranin ay ku ordayaan inay bilaabaan ay rabaan war waxa marka baratid kadib la bilaabaa marka baratid kadib bilow kadib way ku fududaanay inaad gaartid meesha aad rabtid halkan insha Allah waxaan ku soo gudbin doonaa laba qayb oo laba qayb aan ka hadli doono objectives waxa la dhaho objectives waa waxa ugu adag ee challenge-ga qofka galayo waa objectives lagu sheegay waa kuwan waa afartaas qayb wadaada garaneyn kama baasaysid balkan guul kama gaaraysid afartii qayb marka insha Allah waxaan sameyn doonaa inaan fududeeno isku dayno inaan fahansiino dadka afartan qayb waa afarta qayb ay ku soo tagelinaysa inta challenge-gan ka gudubtid kadib akoon real lagu dhiibo akoon realkaas aad ka shaqaysatid faa'iidada aad samaysid 70% inaad qaadato 30 FTM oo ay qaadato laakiin afartii haddaad adoo garaneyn inta gadato asdaad lacagtooda yarta ay gado ku biir kadib aad waxaan kula noqoto wax fudud I'm sure akoomo badan inaad gubi doontid macnaha oo gudbi doona hadii Ilaahay yiraahdo waayo wixii ma garanaysid wixii horta baro wixii markaa garitid wixii aad taqaanid waxa ku fududaanaysa waxa aad rabtid inaad heshid laakiin adoo wixii aqoon adagtaa inaad samayso waxa hadda safarta oo kale meesha u socotaa garanaysid waayo niyada ku degan meesha in la gaarin in kale waa kala garanay laakiin haddaad garanaynin ba oo iska saarantay baabuurka qofkii degaag waa inaad iska raacid waa laga yaabaa oo iska digtid ama meesha u socotaa garanaynin meeshii marka meeshii ka hor maanta iskaga digaysaa marka isku day meesha u socotid inaad garitid saad u heshid waxa rabtid waa wax jiro qaacido sax ah marka hadii hore aan u socono hadda waa aragtaan akoonkan waa akoon gudbay akoomada aan gudbino kamid yahay akoon gudbay waa akoonkan waa aragtaan wax walba waxa inaad gudubto lagu kartaa meeshaas ay ku qoran tahay basset ee tigta saxda saaran tahay qofka aanu gudbin halkaas waxa saarnaan doonto calaamad khalada akoon kale oo gudbin oo kamid ah walaalaheen ayaa insha Allah asna idin tusi doona oo asaga qofkaas uu u maleeyaa inuu gudbay uu soo weydiiyo su'aal waxa ugu dhaliyeen waa asay dad badan aniga gooni oo caawiyo oo sheegay in objectives-ka iyo qaabka yihiin laakiin waxaan ogaaday in dad badan u baahan yihiin videogan iyo dad badan ay soo codsadeen in garanaynin objectives-ka waxa la dhaho meesha laga rabo hadii aan hore u sii socono horta objectives waa kuwana waa afartan qayb maxay kala yihiin kan u horeeyo waa minimum trading days maalmaha ugu yar oo challenge-gan oo ugu gudbi kartid waa 10 bay oo maalmaha trading days-ka 10kaas bari ma aha 10 bari maalin kasta trade inaad qaadatid oo qasab yahay inuu trade aad qaadatid waa qasab laakiin trade lotki aad ku qaadanaysid waxaas kuma qaadanaysid khasaare yar ayaa ogolaanaysa 0.01 ama 1 cent ay ku galaysaa suuqa marka saa u furtid click aad siisidba waa iska xireysaa maalinkaas jaanis suuqa kuma lahayn waa iska xireysaa maalinku jaanis leeyahay lotki aad ku isticmaalaysay oo inaad ku gudubtaa rabtay ee loogu talagalay aad qiimeysatay ayaa la galaysaa marka hore intaad trade-ka aad qaadanin SL-kiis waa xisaabinaysaa khasaaraha ogaanaysaa khasaare aad ogaan hadaa trade-ka qaadatid challenge waa ku dhacaysaa waayo waxa lagu ogolaa maxi daily loss waxa lagu ogolaa lacag dhan $1250 hadii aad khasaarisid $1300 oo maalinkaas khasaaraha aad xisaabin oo lot 5 ala gashay saasa ku dhacday waxaan filayaa inay fahanteen marka inta trade gelin waa inaad khasaaraha ay qaybsaa tan waxaan dhaanay waa inaad maalinka trade fiican aad helin afurta 0.001 oo u dhiganto 10 cent
1 cent yaan ka wada 1 cent sorry u dhiganto 1 cent halkaas intii isla markaa furtid khasaaraha yarkay ku hayo dib mala waa iska xiraysaa saasa waxa uu gudubtay hal maalin oo trading days maalin labaad saas sameynay maalin saddexaad saas maalin afar saas markaa saas samaysid profit targetkii markuu kuugu dhaco maalin kale aad trade fiican qaadatid oo aad meel aad si fiican waan la isgaraystay aad 2500 profit targetka laga rabo 2500 oo ahaa 2500 markay kuugu dhacdo suuqaas waa iska xiraysaa profit target macnaha daily minimum trading days ka hadii wax uu kaaga dhiman yahay dib malaha 0.01 iska furay tobanka bir markuu sax ku saaro oo kana uu sax ku saaro kana sax ku saaro kana sax ku saaro saas ku gudubtay qaybtan objectiveska oo positive-ka oo inaa gudubtay ah waxaan filayaa ayada inaa fahanteen oo aan si fiican u idinku fududeey ma rabo inuu dheeraado video dheeraado waxaan rabaa video kooban oo wax badan laga faa'iido noqdo insha Allah hadii la yiraahdo marka maxi losska waa waxa ugu dhib badan ee dadka ayna fahansaneen iyo maxi daily losski labadan la waayo hadii sawirada aan tirtiro si fiican ayaga aan ugu fiirino waa labada ugu adag waayo maxi losski iyo daily losski waa maalinkii khasaaraha lagu ogol yahay inaad dhumisid dadka qaar ay waxay iska dhaadhicinayaan maadaama maalinkii liyo ogol yahay kan koowaad hadaan ka bilaawno maxi losska maadaama maalinkii liyo ogol yahay 1250 maalin kasta miyaa khasaarin karaa waa maya maalinka ugu badan tahay inaa intaas khasaartaa la rabaa oo 1251 hadaa khasaartid waa dhacday ninka wuxuu maalinku ugu badnaa intuu ku jira challenge-ga wuxuu khasaaray 87.13 cent khasaaray maalinku ugu badnaa marka waxa laga rabaa maalinka inaad waxa aad u dhawaan xataa 1250 inaad u dhawaan maalinkii hadii aad trade macquul qaadatid oo hal trade aad qaadatid SL kaaga dhaco $300 ina banaanka ahaatid fiican oo faraha ka qaad suuqa haduu jaanis kale aad una lahayn ma 1250 kiyaan gaara 1250 haday gaartid hadhow wax kuma dhiman ogo hal bib haduu ku darsamo khasaara inaad dhacaysid la socodaygan inaad taas ogaataa muhiim marka ogaato waxa ku fududaanaysa markii inaad iska ilaalisid daily loss kana fahantina fiican maxi loss ku soo haray maxi loss oo maxaa tahay maxi loss waa challenge-gan ay inaad ka gudubtid la rabo 10 bari ugu yar ugu gudubtid la rabo inta uu socdo dhan waxa lagu ogol yahay $500 inaad khasartid tusaale ahaan lacagtan hadda waa akoon 25 kun waxaan ka hadlayno akoon 25k waa akoon 25k waa waxaan filayaa inay fahanteen 2500 iyo $1 hadaa khasartid waa dhacday ayadana intuu challenge-ga socdo 10ka bari oo horeyso inaad khasaarin baa la rabaa 2500 wax ka badan 10 bari markii la isku daro marka hadaa dhaadid maalin kasta $1 khasaara 10 bari meeqa noqonay $10,000 yaa ka ogol marka maada sharciga sameeysan dadaas kale waxaan sharciga sameeysan sharcigooda waa inaad ku dhaqantid dad ku dhaqmi karin abanaan ka ahayd faraha ka qaadi maxi loss marka waa sidaas intuu challenge-ga socdo waxa lagu ogol yahay inaad intaas khasaartid ninka fiirada akoonkan miyuu u dhawaaday waa maya $1 bas oo khasaare waa very good waxa markii qofku wixii marka taqaanid waa fududahay laakiin hadaa meeshan aan khasaarin lahaa 2550 iyo hadaan dhaafi lahaa trade-ka uu ku dhici lahaa baalkan qofkaan namuuna gudbi lahayn marka anaga waxaan akoomada gudbinayna cilmigeedaan leenahay anaga naqaan qaabka u gudbinayna laakiin waxaan ka hadlayaa dadka dhahaya akoonkayga inaan gudbisanahay gudbiso walaalo ma xumo waa si fiican qof ma sha Allah soo kalsoonaata laakiin ogo waxa aad sameynaysid ka hor inaad baratid isku day fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun hada garanin dadka yaqaan waxa weydii dad badan oo waxa jiro talid su'aalan si oo aanan $1 ka qaadan oo aan ka ribin xataa oo walaaltinimo ilaahay dirtii oo caawinay waxa jiro dad aan u gudbiyo oo aan kurshin ka qaadan laakiin ogo ma gudbin doono akoon dambe oo free ama gudbina waayo koomada ugu badan ba hadda waa inaan qabashadooda joojin rabaa hadda akoon $10,000 ma qabano akoomada aan qabano waxa uu yar $25,000 $25,000 ugu yar waxaan ugu badan 100,000 marka taas dib baan ka sharxi doonaa profit target ka laga rabana
waa tan ugu fudud profit targetka haddaa ayadana wax yartaa taabano si wixii ay isku wada raacaan sawirada haddaa noo nadiifiyo screenka haddaa noo nadiifiyo profit targetka waa kan ugu fudud haddii waxaan ku dhahay hadalkayga isku day luuqadeeda waa fududeynaya inaad fahantaan isku daya haddii aad minimum trading dayska aad ka gudubtid waa ayadan waa laga gudbi karaa oo maxi daily losska aa ixtiraamtid oo aadan khasaare intaan ka badan sameyn oo maxi losskana ixtiraamtid oo khasaaro 2500 ka badan aadan sameyn oo profit targetka aadan gaarin meeshii la rabay hadda akoonkan 2500 laga rabay bas 2600 gaarsiinay laakiin haddii aad gaarin 2500 oo gaartid 2000 bas aad gaartid ama kunba hadaa gaartid oo wax badan kaaga dhiman yihiin waxaad jaanis u heli doontaa challenge-gaas inaad ku dhicin oo kan uu kuu saxmo kana kuu saxmo kana kuu saxmo kan bas ee khalad ka saarnaato waxaad jaanis u heli doontaa inaad challenge-ga ku dhicin oo dib mar labaad aad u heshid bil kaleeto isku day inaad warkayga fahantaan waxaad jaanis u heli doontaa inaanay akoon kale cusub in lagu siiyo oo aad soo bilowday challenge-gi faa'iidada aad samaysana laga tira meesha waxaan dhan laga tira khasaare aad gashay waxaan laga tiro haddii saddexda ugu horeysa aad etik ku saarmaan oo ixtiraamtid oo iska ilaalisid haddii profit targetka aad gaartid badana wanaag waa lagu saxayaa Soomaa waxaan filayaa ayadan inaa halkaas fahanteen oo halkaas aan uga baxno oon galno qaybta kale ee walaalkeen ku dhacay qaabka ugu dhacay iyo uuna ogeyn waa kana akoon kaleetana qofkan waa walaal naga mid anaga magaciisi waxaas ma sheegayno shaqo kuma lihin laakiin waxaan rabnaa in dad badan oo ku hungoobi lahaa ay kaga badbaadaan meeshaas waxa u yaalo aragtaan cushion ayaa u yaalo oo loo sheegayo waxa uu ku dhacay iyo qaabku u dhacay qofkii xataa ilaah kugu dharshay intaas aan akhrinayn oona garanayn ama intaas aan skill halka xataa hadduu akhrin lahaa waxbuu ogaan lahaa walaalkan ma khaldano ceebna ma laha keliya wuxuuna baranin objectiveska waxay yihiin that's why uu ugu dhacay profit targetkiisa maasha allah akoon $2,025 u qaatay profit target badan uu keenay laakiin dee khasaaraha fiiri waa 2 jibaar kana waa 4 jibaarba minimum trade days xataa muuna gaarsiin 4 beri bas uu ku dhacay 4 beri imagine waa 4 days lacag wuxuu bixiyay almost ku dhawaad haddii aan tagno halkana wuxuu bixiyay 300 ku dhawaad bixiyay $300 4 beri ku dhacay waa qaybtan waa qaybta lacagaha la isku diiwaan geliyo 10,000 intaas la isku diiwaan geliyaa afartan challenge bixisa FTMO qaybtan waa qaybta labaad qaybta hadda walaalku ku dhacay waa $300 $4 bisa ka dhiman 4 beri gudahooduna ku dhacay imagine qaybtan waa qaybta saddexaad waa $410 almost waa 50,000 100,000 waa $640 wax yar baa ka dhiman marka walaalkeen 4 beri ayuu $300 intuu gatay akoonkaas uu ku dhacay 4 beri ayuu ku dhacay marka waxa u soo qaadanay maxaa waaye ma asagaan aan ku xumeynayna maya walaalo kale oo badan oo aad u badan inay ka faa'iidaan waxaan in hadhow waxaan ku hungoobin asna ajir baa u tahay anagana ajir Allah naga siiyo marka walaalahay waxaan fiican wixii aadan aqoonin qofka kugu dhaamo inaad weydiisid ama wixii aad baartid waxaa jira kuwa English oo ka hadlayo FTMO wuxuu yahay wax dhan inaad baartid ayaga waxay leeyihiin page waxay leeyihiin YouTube ku inaad daawatid waxyaabaha dadka ku baaseen inaad daawatid waxyaabaha dadka dhacay ku dhacay inaad daawatid kadib markaas fikrada kaaga baxayso marabna inay nagu dheeraato marka haddii aan soo gabagabeeno
afar beri gudahooda uu ku dhacay wuxuu ixtiraami waayey maxi losska wuxuu lahaa 1250 5000 iyo 400 lacag ku dhow khasaare 1250 bis loo ogolaa maalinkii intuu challenge socda 2500 loo ogolaa 5152 khasaare akoon konta kun haduu yahay xataa uu ku dhici lahaa waayo konta kun lama ogolo 5150 uu ku dhici lahaa konta kun xataa adoo akoonka ahaan lahaa oo ku dhow $400 intuu ku gato saas uu khasaarin lahaa marka waatana meeshan hoose wuxuu kugu sheegayaa marka dhacdid waxa ku dhacday maxi loss ku dhacay objectiveska iyo daily loss labadaba ku dhacay marka waxaan filayaa inaad fahanteen maxi loss waxa walba wuxuu yahay waxaan wax yar ayaan sii raacin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo anaka ka wadina FX ahaan waxaan qabanaa sidee u mootinaa waxaan ku mootinaa waxaan horta qabanaa akoonka ugu yar waa $25,000 akoon aan qabanaa $2500 waxaan ku mootinaa 25,000 akoonka 25,000 25k ga iyo 50k iyo 100k saddexdaas akoon aan gudbinaa saddexdaas akoon waxaan ku gudbinaa akoonkan 100,000 waxaan ku gudbinaa laba challenge waaye challenge koowaad waxa laga rabaa lacag dhan $10,000 ina profit target gaartid challenge verification kan waxa laga rabaa $5,000 ina gaartid waxaan ku gudbinaa lacag dhan $500 oo horumarisa oo isdiiwaan gelin ah akoonkaas qofkaas anaga u qaadayno mas'uuliyadiisa waanu gudbinaynaa ilaa verification marka u gudbina kadib asaaq akoonka la wareegayo haddii bishaas uu lacag ba sameeynin oo uu sameeyo $10,000 hadduu sameeyo tusaale ahaan $7,000 asal ahaan doono 3,000 FTM oo qaadan doonto haddii $1,000 uu sameeyo $1,000 kaliya hadduu sameeyo $700 asal ahaan doono 300 FTM oo lahaan doonto qof kale oo la qaybsan doono mana lacagtaas asaa iska lacagtaas toos saawle akoonka labaad waxa waaye 50k asana waxaan ku gudbinaa lacag dhan $300 waana horumaris lacagaha aan sheegayo waa diiwaan gelin ahaan akoonkaasni qofkaas insha Allah waa loo gudbinayaa sida ugu macquulsan asoo kabitaalkiisa iyo xoolihiisa la ilaalinayo oo aan ku xad gudbeenin sidii waxayna u ilaalinayna aan u ilaalin doono insha Allah akoonka saddexaad waa 25,000 waxaan ku gudbinaa lacag dhan $200 marka insha Allah akoomada qabanayna way xadadiin inta badan waxaan qabanaa akoomada 100,000 iyo 50,000 20,000 xataa waxaan u maleynaa tirada dhiman aan rabnay inaan qaadano way gabagabo waxa u maleyn hal ama laba ka dhiman labadaas in maanta la soo bixiyo laga yaabaa ama isla bari la soo bixiyo hadii labadaas aan helno ayagana waa joojin doonaa 25,000 labadan ayaan hadana xoog saari doonaa ilaa ayagana waxa u maleynaa dhowr akoon ka dhiman dhowrka akoon hadaan qabano saas ku joojinayna insha Allah intaas oo gudbinayna markii gudbaan kadib ayaan kuwa kalena insha Allah qaadan doonaa marka waxaan rajaynayaa inaa casharka wax badan ka faa'iideen waa maasantiin walaalaha YouTube naga daawanay waxaan leenahay channel Telegram oo ilaa 1,200 qof walaalaha ku midoonay ku soo biira hadina kamid aheen walaalihiin kala sii gaarsiiya casharka hala share gareeyo si walaalo badan oo caqabadan haysto ee uga badbaadaan YouTube ka subscribe saara like dan share iyo commenting insha Allah wixii su'aal igu reebo waan ka soo jawaabi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo وما سنتين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.